ورحمة الله وبركاته ولا لها قيمة بدن كجكنا وحا كمدا إمارات كعربتا يا شيكتي إن شن يتوبن جنتال يدرونا أي كل عين دل كده بربروين أوسو غاري قيبة كمدا دكاد فجارة وحندين هيا وراركي وجودا بحيصة إمارات كمرايكن كإيران قضبضا سيدو كلانو برنامج كيدو كواني ينوحا كمدا madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in uu xilka ka dagayo 9 sano kadib waxa uu noqday hadal la sheegay inuu ahaa kaftan dhable shaki badan dhaliyay qodobada sidoo kale aanu barnaamijkeedu ku heenayna waxa kamida Iran ayaa sheegtay inay xoog ku celisay maraakiib ay leeyihiin Mareykanka oo isku dayay inuu xoog ku soo galo Hormuz waxaan ku hayaa wararkii ugu dambeeyay xiisadda arinta la xiriirto iyo xaaladda Hormuz dagaalka cabsida weyn bariga dhexe hadda laga qabo in uu ka qarxo qodobka ugu dambeeyna waxaan barnaamijka kugu hayaa afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Ismail Baghai ayaa sheegay USA haday xal rabaan dalabka faraha badan ha joojiyaan iyo sidoo kale xujooyinka mar walba ay ku geedaamaan wada hadallada qodobada iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaanu barnaamijka idinku haynaa maanta oo maalinimo Talaada media aynu ku bilowno xalay waxa la sheegay in Iran ay duqaysay qaybo kamid ah Imaaraadka 15 gantaal ayaa la sheegay in lagu dhuftay Fujaara iyadoo sidoo kalena ay sheegtay Imaaraadka in markab ay leedahay ay duqaysay Iran gaar ahaan ciidamada badda dalka Iran Imaaraadka waxa ay sheegeen duqayntii xalay ay ku dhufatay Iran dalkeeda inay ku dhinteen 13 qof aan ilaahay 3 qof guud ahaan gantaalada lagu dhuftayna waxa la sheegay inay ahaayeen 15 saddexda qof ayaa la sheegay inay ahaayeen dad u dhashay dalka India oo ka shaqaysanayay Imaaraadka Carabta dalalka Khaliijka waxa ka shaqeeya oo ku nool dad badan oo ka soo jeeda Pakistan Afghanistan sidoo kale Bangladesh iyo India haddaba weerarkii Fujaara lagu qaaday ay sheegteen Imaaraadka inay ku soo qaadeen ama uga yimaadeen dhinaca iyo Imaaraadka Carabta dhinaca Iran waxa warbixin arinta ka diyaarisay warbaahinta aynu isla daawano wararkii ugu dambeeyay xiisadda iyo weerarkii lagu qaaday Imaaraadka Carabta iyo qasaarihii soo gaaray Claims and counterclaims between the United States and Iran over who controls the Strait of Hormuz continue after one of the most serious escalations in violence since the ceasefire came into force on April the 8th. Now, the UAE says that it intercepted several Iranian missiles on Monday. A fire broke out at a petroleum facility in Fujairah, including injuring 3 Indian nationals. Tehran has denied any plan to target the UAE. It says the waterway remains under its control. On Monday, it released a new map outlining what it claims is its territory over a large part of the route. Now, according to the US, 9 ships have passed through the strait under its Project Freedom initiative, which Iran denies. Washington says it destroyed 7 Iranian boats for trying to interfere. Iran has also denied this. Let's go straight to Rasul Seda, who's live for us in Tehran. So let's begin with the situation in the UAE. What exactly has Tehran said about those attacks on the UAE yesterday? Well, Iranians are deliberately keeping the language of the statements ambiguous and vague. So we have a social media post from the country's foreign minister, Abbas Araghchi, and saying that the events in the Hormuz make clear that there is no military solution to a political crisis. And also, then he said, there are progress being made. taasi waxay ahayd warbixintii ay ka diyaarisay Al Jazeera weerarada iyo daxiisadaha goosgooska ay ka socda bariga dhexe gaar ahaan Iran Imaaraadka iyo Mareykanka iyo Iran labada dhinac waxa ay kala sheeganayaan cid maamusho Hormuz Mareykanku waxa ay sheegayaan inay iyagu maamulaan oo gacanta sare ay leeyihiin maamulka Hormuz halka ay Mareykanku iyaguna sheeganayaan Iran cagsigeeda laakiin warbixintii ugu dambeysay Al Jazeera ay tilmaantay waxa la sheegayaa ciidamada dalka Iran
in ay si buuxda ay yihiin awoodda ugu sarreysa ee maamusha ee go'aamada u dambaysa leh Hormuz. haddaba maxaa ka jira weerarada lagu qaaday Imaaraadka Carabta? Iran wali ma qiranin in iyadu ay weerarkaasi ka dambeysay, laakiin waxaa jira warar dhanka Iran ka imaanaya oo sheegaya in weeraradani ay yihiin kuwa ay sababteedu leeyihiin Mareykanka, Iranna ay shaqo ku lahayn. si kastaba ha noqotee, Imaaraadka Carabta ayaa dhowr jeer Iran waxay ku eedeysay in Iraniyiintu ay beegsanayaan Imaaraadka, yihiin cadowga ugu weyn ee khatarta ay leedahay Imaaraadka, halka Iran ay ku eedeysay Imaaraadka inay yihiin kuwa u hoosasinaya ama mar walba fursad siinaya cadowga Imaaraadka, goobaha looga soo duulana ay ka mid tahay Imaaraadka Carabta. sidaa darteed, weerar walba iyo khatar walba oo Iran wajahaysa, cidda dhibaatada ugu weyn ay ka soo gaari doontana waxay sheegeen Iraniyiintu inay yihiin Imaaraadka Carabta. waayahay saaxiibada qiimiga lahow, qodobka markaynu meesha ugu gudubno waxaynu toos u gelaynaa qodobka xiga barnaamijka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo xalay hadlay ayaa sheegay goob sheeko ay ka socotay ama kulan uu ka socday oo kaftan badan uu ka dhacayay. Trump waxa uu ku hadlay xilli adag oo xasaasiya, doorashadii midtermka ama xilliga kala barka aan Mareykanka oo lalihiisa lagu jiro. hadal siyaasiyiin badan ay ku sheegeen inuu muujinayo khatar ah in madaxweyne Donald Trump uu u dhaqmay sida kaligii taliyaha, isla markaana hadalka ah in uu ka degay xilka 9 sano kadib ay tahay hadal shaki badan dhalinaya, looguna yeeray inuu yahay hadal kaftan dhabla ah. waayo Trump horay waxa ay qaar ka mid ah xisbiga Republicanka xildhibaanadooda ay u ololeeyeen in waqtiga Trump ama xilliga madaxweynaha uu hayn karo ama soo sharxi karo la kordhiyo, taasoo dood badan dhalisay. hadda Mareykanka sharcigiisu wuxuu dhigayaa oo kaliya in madaxweynuhu 2 term soo noqon karo, 4 sano iyo 4 sano 8 sano. 8 sano hadduu xilka hayo madaxweynaha, ama 2 mar oo kala duwan ha noqoto ama 2 mar oo isku xiga ha noqoto, madaxweyne 8 sano xil haya 4 iyo 4 mar damba ma soo noqonayo. Republicanka qaar ka mid ah ayaa u ololeeyay in Donald Trump inta uu joogo la bedelo dastuurka Mareykanka, loona bedelo in madaxweynuhu soo noqon karo intuu doono, taasoo dood badan dhalisay. hadalkii xalay wuxuu sii badiyay shakiga ah in Donald Trump uu doonayo in uu sii joogo. intaan qodobkaas idin gelin oo aan idin maqashin doono iyadoo maqal iyo muuqaal iyo hadalkii Donald Trump, dhinaca kale aan idinla wadaago warbixin laga diyaariyay caafimaadka madaxweyne Donald Trump oo iyada laftirkeeda buuq badan dhalisay. haddaba sida ay qorayso warbaahinta The Hill, waxa ay leedahay most Americans say Trump is mentally, physically unfit to serve effectively. dadka Mareykanka ay leedahay The Hill warbaahinta leedahay intooda badan waxay aaminsan yihiin madaxweyne Donald Trump in maskaxiyan uu ahayn nin fadhiyo ama uu xil hayn karin mentally, maskax ahaan iyo xitaa physically jir ahaan nin caafimaad qaba oo xafiiska madaxweynaha sii fadhin karo ma ahan ay leeyihiin dadka Mareykanka, oo xilka ma sii hayn karo. waxay marka warbixintu leedahay dadka waxay aaminsan yihiin waa Mareykanka in madaxweynahoodu uusan ahayn qof caadiya oo xilka hayn karo oo madaxweynaha sii ahaan karo. waayahay arrintaa markaynu qodobka meesha uga gudubno intaynu qodobada kala gelin, bal aan isla dhageysano kaftan dhablaha Donald Trump ee uu ku doonayo 9 sano kadib inuu xafiiska uga baxo. When I get out of office in, let's say, 8 or 9 years from now, I'll be able to use it. I'll be able to use it myself. waay cid Trump ugu horeysay oo kaftan noocaasa xafiiska iska sii fadhina ku kaftanto madaxda Mareykanka xilli cashaa xilliye ay kaftamaan way jiraan. arrimo siyaasadeed dhexdooda madaxdii ka horeysay meelo kale kaftan ka tuuraan, laakiin ninkan wuxuu ku leeyahay 8 ilaa 9 sano waqti cayiman buu sameystay markaan xafiiska ka baxo. macnaheedu waxa waaye xitaa hadda waxaa jira shaki ah doorashada marka lagu kala adkaado waxaa dhici karta in Trump uu yiraahdo maaragtay doorashadan si sax uma dhicin. markii hore way dhaxday musharac walba oo xilligiisa markuu dhamaado isaga bedelaya Republicanka waxaa dhici karta inuu ku hayo oo uu dhaho laga barayn xisbiga Republicanka. doorashadii Joe Biden muran buu galiyay oo khatar weyn baa dhici rabtay, mar walba halis baa jirta ayaa la leeyahay inta Donald Trump uu xilka hayo.
waayahay saaxiibada qiimiga leh waxaynu u galaynaa qodobka xiga barnaamijka. Iiraan sida ay qorayso warbaahinta waxa ay sheegtay inay xoog ku celisay markab u leeyahay Mareykanka oo isku dayay inuu Hormuz xoog ku soo maro. maraakiibtii Mareykanka dib loo celiyay meel uu maro iyo jaha uu ka baxo ayuu waayay sida ay warbixinta iyo warbaahinta qorayso. Iiraan ma aha sheegashadan mid ay iska sheeganayso, waa mid la sheegay in ay ku cadaynayso warbaahinteeda, warbixinana ay ka diyaarisay lana wadaagaysa telefishinada iyo warbaahinta kale. bal aan isla eegno xilliga ay ku soo aaday Iiraan inay dhahdo waxaan celinay oo aan xoog ku celinay markab uu leeyahay Mareykanka oo isku dayay in uu xoog ku maro dekedeena. waxay ku soo aadaysaa xilli Mareykanka uu sheegay in maraakiibta dagaalka uu xoog ku marsinayo dekada Iiraan uu ku marsinayo. macnaha Trump wuxuu leeyahay maraakiibta dagaalka raacinayna maraakiibta ganacsiga si ay ciidamada badda Iiraan ay uga baqaan. laakiin Iiraan waxay leedahay markab walba oo isku dayay inuu soo maro Hormuz isagoo amar aan ka haysan ciidamada badda dalka Iiraan waxba ku dhacay. Mareykanku uu bilaabo baa leeyahay maxaa ku dhacay markii balan isla daawano warbixintii ugu dambeysay. ارتش اعلام کرد با اخطار قاطع و سریع نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی از ورود ناوشکن‌های دشمن آمریکای صهیونی به If you have an American Navy ship that has probably killed a good number of Iranians trying to pass through, Iran has the right and the responsibility under Article 51 of the UN Charter, it's called self-defense, to shoot at that enemy ship. taasi waxay ahayd warbixin ay Al Jazeera ka soo qaadatay telefishinka dalka Iran oo baahiyay in Iiraaniyiintu ay gantaal ku dhufteen oo ay garaaceen dibna u celiyeen markab uu leeyahay dalka Mareykanka oo isku dayay in uu xoog ku soo gudbo Hormuz isagoo aan fasax ka haysanin ciidamada badda dalka Iiraan. haddaba sida aad maqlayseen professorka reer Iiraan arrimaha shuruucda caalamiga wax ka dhiga jaamacadda Tehran University waxa uu leeyahay Iiraan xaq waxay u leedahay sida uu qorayo Charterka qaramada midoobay article-ka 51aad self defense ayaa la dhahaa buu yiri in dawladdu ay isdifaacdo hadii lagu soo xadgudbo xuduudaheeda badda cirka iyo dhulkaba. marka duqeynta iyo gantaalada iyo weerarada Iiraan ay ku difaacanayso dhulkeeda waa mid sharciya oo ay u haysato sharciyad caalamiya. haddaba Iiraan waxa ay hadda cadaysay sida muuqaalada iyo warbixinta ugu dambeeyay ka imanaya Hormuz ay muujinayaan in ay awood u leedahay ciidamadeeda badda in ay garaacaan oo ay dib u celiyaan walina ay jiraan awood weyn oo ay ku difaaci karaan badaha dalka Iiraan. taas oo meesha ka saarayso sheegashadii Mareykanka ahayd in ay burburiyeen ciidamadii badda dalka Iiraan. waayahay saaxiibada qiimiga leh qodobka ugu dambeeya barnaamijka waxaynu ku soo afjaraynaa afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda